dowladaha, hay-adaha, mucaashaqiinta iyo qof walba oo bulshada dhexdeedii maqaam ku dhex leh waxa ay ka siman yihiin isticmaalka jaajuusnimada. dowladuhu si ay u ogaadaan sirta cadowgoodii waxa ay ku qasban yihiin in jaajuusnimo ay sameeyaan. dadka ganacsatada ahna gaar ahaan shirkadaha waaweyn xifaartanka wax soo saarka ee ka dhexeeya ayaa waxa uu ku qasbayaa in midkood midka kale wax soo saarkiisii ka hor ay isjaajuusaan. mid waliba oo kooxahani ka mid ahna jaajuusnimada waxa uu isticmaalaa manfacadiisa. muuqaalkani waxaad ku arki doontaa sirdoonka dowladaha sida uu u shaqeeyo iyo sirdoonnadii la fashiliyey 50kii sano ee u dambeeyey. 1970kii safiir Maraykan ah ayaa waxaa kabaha hoostii loo geliyey qalab mikrofon ah kaas oo mar walba uu safiirka istaagaba hadalkiisii gudbinaya. safiirku waxa uu lahaa shaqaale gaar ah oo feeraynta dhankiisii u qaabilsanayd. xilligaasi teknolojiyada sida maanta oo kale maadaama aysan u horumarin dadku wax badan kuma aysan baraarugsanayn. shaqaalaha marka ay dhanka iyo kabaha safiirka u keentay isaga oo waxba aanan ogeyn ayaa xafiiska bannaanka hadalkiisii laga dhagaysanayay. iyada oo waxba aysan ka soo wareeganba ilaalada gaarka ah ee qunsuliyadda Maraykanka ayaa waxa ay arkeen signalis aanan la aqoon in qunsuliyadda in bannaanka uu uga soo baxayo. si degdeg ahna qolada amniga waxa ay bilaabeen in signalkani ay soo saaraan. meel walba marka laga baarayna safiirka qunsuliyadda ayaa la arkay in signaalka isaga uu ka imaanayo. dhankiisii oo dhan meel walba iskaan ayaa la mariyey. kabaha ayaa waxaa la arkay hoostoodii in lagu soo dhex qariyey qalab sida mikrofoonka oo kale ah kaas oo bannaanka u suuragelinaya wixii gudaha looga hadlo in bannaanka laga dhagaysto. daqiiqado kadibba waxaa la ogaaday sirdoonka Czechoslovakia STB in qalabkani ay soo saareen. marmarka qaarkoodna sirdoonku sida tuug qabtay tuug oo kale waxaa u suurtooday in sirdoonnada dhexdoodu aysan isku dhuuman sidani oo kale. teknikyadani in kabaha hoostoodii wax la geliyay sanadka markuu ahaa 1960kii ilaa 70meeyadii waxyaabaha ugu caansan ee qof laga dhagaysan karo codkiisa ayuu ahaa. waxaase ku xigay isticmaalka xasharaadka. taariikhda sirdoonka waxyaabaha ugu caansan ee la isticmaalay waa xasharaadka. cayaanada yaryarka ah ee duula ayaa waxaa lagu xiraa qalab laga kontarooli karo meel kale. qofka bani aadamka ahna waxaa ku adag in xasharaad sida tixsiga oo kale ama shinnida in sirdoon oo kale uuga shakiyo. dagaalkii koowaad ee adduunka ka hor teknolojiyada dadku ay isticmaalayeen maadaama ay aad u yarayd waxaa caan ahaa oo la isticmaali jiray magaalada hareeraheedii gaar ahaan xuduudaha ayaa waxaa lagu dhejin jiray mikrofoono waaweyn meel dadka halka ay ku nool yihiin aad uga fog. sababta sidani loo samayn jirayna waxay ahayd diyaaradaha dhawaaqoodii inta aysan hawada waddanka soo gelin in mikrofoonadani dhawaaqoodii laga maqlo. maantase diyaaradaha waxaa laga ogaan karaa hawada waddanka inta aysan soo gelin ka hor masaafo 80 kilomitir ka fog diyaaradda soo socota. 1945tii sirdoonka ruushka ee KGB ayaa waxa uu Maraykanka ku sameeyay jaajuusnimo aanan caadi ahayn oo taariikhda Maraykanka gaar ahaan sirdoonka baal muhiima ka gashay. waxaa safiir Maraykan ah loo soo hadiyaday heykal aad u qurux badan oo astaan u ah qunsuliyadda waliba nooca darbiyada lagu sharaxdo. heykalkani qaabkiisu waxa uu u muuqday mid aanan marnaba qofka uusan ka shakin karin. safiirka hadiyadahani qaaliga ah durba waxa uu ku dhegsaday derbiga xafiiskiisa balse waxaa heykalkani gudihiisii lagu dhex qariyay qalab aad u yar oo aanan laga dareemi karin in wax laga basaaso. si fasiix ah oo aanan shucaac lahayn ayuu hadalka safiirka ee qolkaasi ka dhexdhacaa bannaanka looga dhagaysanayay. xilliga uu soo galo safiirka iyo waxa uu ku hadlo KGB-ga sirdoonka ruushka 24 saacba dhegta ayay ku hayeen. muddo 7 sano ah ayaa heykalkaasi xafiiska uu ku yaalay. cid dareemtay ama cid wax ka fahamtayna midna ma aysan jirin. xilli xafiiska dayactir lagu sameynay ayaa waxaa si kadis ah heykalkani gudihiisii lagu arkay waxyaabo cajiiba oo bannaanka signal u gudbinaya. khubarada arrimahani ku xeel dheeraan marka ay baareen waxa ay ogaadeen in qalabkani uu yahay mid wax laga dhagaysto. arrintuse mar haddii taxadar la'aanta safiirka wax ka dhashtay ay tahay cid dembi loo qabsan kara ma ay jirto. waayo sirdoonka oo dhan ayaa waxa uu ku dhisan yahay ka faa'iidaysashada qofka kaa soo horjeeda taxadar la'aantiisa. inta badanna waxaan maqalnaa xilliyada qaarkood beesha caalamka ama laamaha dowladda ayaa waxa ay ka digan in magaalada iyo qarax uu ku jiro ama maalmaha
markaasi waxaa la filan doonaa qarax in uu dhaco. Dadka Soomaalida qaarkood si degdeg ah xogtani dadka soo gudbinaya ayaa laga yaabaa in dembi ay u qabsadaan, sida in qofkaba in ay ku tuhmaan in qoladaasi uu la shaqeeyo. Way adag tahay in qofka uu ku fakero tiknoolajiyada casriga ah ee sirdoonka iyada oo la adeegsanayo in cadowga dhaqdhaqaaqiisa iyo hadalladiisa in lala socon karo. Xarumaha dowladaha, khaasatan goobaha madaxda, heerka ilaalinta waxaa xitaa laga shakiyaa hawada bannaanka ee daaqadda ka soo gasha. Goobaha madaxda sare ee ku kulmaan ee sirta qaaska ay isku dhaafsanayaan waa meel hawo oo dhan bannaanka aysan ka soo gelin, ilaa mid qalab ka soo gudubtay mooye. Dowladduna waxa ay xoog badan tahay hadba heerka sirdoonkeedii uu la eg yahay. Sirdoonka Ruushka ayaa waxa uu ka mid yahay sirdoonnada dunida ugu saamaynta badan. Maraykanka xitaa dhanka sirdoonka wuxuu aad uga baqaa Ruushka. Inta aanay tiknoolajiyada horumarin ka hor ayay Ruushku waxa ay soo saareen qalabkaasina qofka aaladaha uu wata macluumaadka u keydsan oo dhan ayuu dib u soo gudbin jiray. Qofka isaga oo qof kale aanan arag derbiga ka dambeeya gadaashiisii haddii qalabkani la dhigo durbo waxyaabaha signalka bixiya sida telefoonada, qalabkani durbo gadaal ayuu u gudbinayaa. Dowlad walibana xafiisyo gaar ah oo waxa ay leedahay 24 saac dadku ay dhagaysanayaan, gaar ahaan dadka ay basaasayaan. Maraykankuna waxa uu Ruushka taybka la qori jiray dhexdiisii uu ugu soo dhejiyay mikrofon iyo xogta la daawacayo qalab bannaanka u soo gudbiya. Bilowgii Ruushku ma aysan fahmin sidaasina in badan ayaa iyaguna Maraykanku u dhagaystay, balse marka ay gudaha taybku ay fiiriyeen waxa ay arkeen wax aanan laga shakin karin oo taybkani xiriir aanan lahayn in uu ku dhagan yahay. Xitaa xafiiska dhexdiisii wax walba ee miiska saaran marka laga soo tago derbiga ayaa xitaa laga yaabaa qofka in laga dhagaysan karo, sida dhacdayba. Safaaradda Maraykanka ee Ruushka, muhandisiinta dhismahaasi loo xirsaaray waxaa ka mid ahaa sirdoonka qarsoon ee Ruushka. Waxa ayna dhagxaanta dhismahani gudahoodii ay ku qariyeen qalabyo wax laga dhagaysto. Gebi ahaanba safaaradda Maraykanka ee Ruushka waxaa laga dhigay mid walba ee gudaha ka dhexdhacaa bannaanka lagala socon karo. In badan ayuuna Ruushku waxa uu dhagaystay Maraykanka si shil ah iyadoo aanan ku talagal ahayn. Dhismahani waxaa lagu arkay qalab sida mikrofoonka oo kale. Aqoon-yahanada Maraykanka markay u kurgaleen waxani waxay ogaadeen in dhismaha dhinac walba mikrofoon gudaha in lagu dhejiyay. Si degdeg ah ayaa safaaraddaasi loo dudumiyey. Kadibna Maraykanku waxa uu dhahay ashyaada dhismaha waxaan ka keensanaya Ameerika. Shaqaalaha dhisaya safaaradeenuna waxa ay noqonayaan dad Maraykan ah. Sidaasi ayaana lagu dhisay safaaradda Maraykanka ee Moskova. Maraykanku kolkiisana Ruushku waxa uu ku sameeyay mid sidaasi oo kale ah, balse ka duwan. Dhismaha safaaradda Ruushka ee Maraykanka ayaa qaybta u sareysa waxa ay ka duleeliyeen meel sida tubo oo kale ah. Haddii gudaheedii la fiiriyana waxaa la moodaa tubo oo kale, balse Maraykanka tubadani gudaheedii ayaa waxa uu dhexgeliyay qalabyo awood u leh oo bannaanka safaaradda wax u soo gudbin kara. Bannaankuna waxa ay ku dhejiyeen meel safaaradda u dhow sanduuq laga maamulo qalabka ay safaaradda ku dhex xirteen. Ruushku waxa uu sheegay in muddo ah in sidaasi CIA-da Maraykanka ay u dhagaysan jirtay ilaa ugu dambeyn xilli roob uu da'aya kadib la ogaaday. Sidaas ayayna dowladaha dhexdoodii taarget isaga dhigtaan. Kuwanise waa qaar ka mid ah waxyaabaha la isku basaaso ee qadiimiga ahaa ee Maraykanka iyo Ruushka ay isku adeegsan jireen. Dabcan dowlad walba ayaana maanta arrintani sirdoonka ka siman. Jaajuusnimaduna sideediiba waa doonista in qofka xog laga helo. Xogtaasi qofka marka laga helana waa la qiimeeyaa. Wixii ka soo baxana dowladdu sida ayay u dhaqaaqdaa. Hawshani jaajuusnimaduna waa mid si qarsoodi ah oo kaliya loo samayn karo. In qof jaajuus ah la qabto ama la ogaado waa mid riski ah oo maanta ciqaab aad u weyn qofka uu kala kulmi karo. Horumarka tiknoolajiyada casriga ahna shaqadani sirdoonka marka loo fiiriyo xilliyadii hore waxa ay maanta noqotay mid aad u fudud. Si fudud ayaana qofka telefoonka uu haysto ama kombiyuutarkiisii ama aalad walba ee signal uu ka baxo looga basaasi karaa. Haddii internetka lagu darana sirdoonka shaqadiisu waxa ay noqotay mid aad u sahlan. Telefoonka dhexdiisii ayaa sida waagii horeba darbiyada dhexdoodii wax loo gelin jiray ayaa shirkaduhu waxa ay dowladuhu kula heshiin karaan in waxyaabo qaas ah telefoonka gudihiisii ay geliyaan. Sidaasina dadka oo dhan qof walba ee doonay ayaa lagala socon karaa, ama waxaaba dhici karto aaladaha social mediaha in laftinkoodii loo adeegsado. Inta badanna hogaamiyayaasha argagixisada iyo qof walba ee la raadinayo tiknoolajiyo oo dhan qofka uma uu soo dhawaado.
sirdoonka laftinkoodii tiknoolajiyadani moobeelka waxay iyaga laftinkoodu ay ka dhigtaa kuwa si fudud loo ogaan karo, waayo sirdoonku xitaa kuwo kale oo sida iyagana sirdoona ah ayaa iyagana taleefoonka ka daawan karo ama kala socon karo. Taleefoonkuna waa nimco marka nolosha guud ahaan loo fiiriyo, dhinacna waxa uu yahay halistan ugu weyn ee sirdoonada gacanta ay ku haystaan. Shaqada sirdoonka ee casriganina waa ururinta xogta dadka. dowladaha horumar meel walba waxay u sameeyaan kaar laga soo bilaabo raacitaanka tareenka ilaa qofka dukaan uu wax ka iibsaday, xitaa aaladda booska ee kaarkiisii uu marsinay waa xog dhanka iyo sirdoonka dowladda u gudbaysa. balse dadka caadiga ah ee dabagalka aanan lagu hayn muhiim ma aha xogtoodii in sidaa loo sii raacraaco. marka airboorka la joogana boqolaal argagixiso ayaa iyaga oo aanan filanayn marka ay jekinka ka gudbayaan ayaa la soo qabtaa. marmar waxaa la soo qabtaa qof maalin waxa uu sameeyay ee dabagal lagu hay ayaa airboorka lagu soo qabtaa isaga oo qofka waliba wixii uu sameeyay hilmaamay. qofka qabanaya ee booliiska xitaa qofkani uu qabanayo ma uu yaqaano, balse kombiyuutarka ayaa qofka ku qasbayo in qofkani uu qabto. dadka marka ay ka gudbayaan meelaha ciriiriga ah ee eleboonka, wax walba ee qofka uu wato, taleefon, ID, kaarka bangiga, macluumaad walba ee qofka uu leeyahay, marka uu halkaa ka gudbayo waxay u gudbayaan kombiyuutarka. qof horaan dabagal loogu hayo qofka haddii uu yahayna kombiyuutarka ayaa xogta marka uu arkaba durba soo bandhigaya. sidoo kale sirdoonada waxyaabaha ay muhiimka siiyaan waa dhegaysiga iyo muuqaalka. si ay meel u duubtaanna waxaa qasab ah in horaan meel walba kaamiro qarsoodiha ay ku dhejiyaan, ama waa in satellaadyada kor loo tuuro lagala socdaa eeriyadaasi marka la doonayo in xog laga helo. maanta satellaadyada beddelkoodii waxaa soo baxay diyaarado drones ah oo aad u yaryar oo cirka geli kara. qofka halka uu taagan yahay, diyaaradahani sida filimka oo kale waa kuwa u duubaya. waxaana caan ku ah maanta diyaaradahani dowladda Turkiga. meel fog ayaana diyaaradahani sida geemka oo kale iyada oo laga fog yahay lagu aadin karaa eeriyada la doonay in wax laga arko. waxaase cajiiba in qofka arrimaha sirdoonka aanan wax ka fahamsanayn ama askariga inuu u maleeyo in aanan lala socon ee keli uu yahay. diyaaradahani aadka u yaryar ee droneskuna waxa ay awoodaan meel fogfog iyaga oo hawada ku jira heer aanan la arki karin ayaa waxa ay awoodaan inay u duubaan sida kaamiro oo kale. waxaana lagu daawadaa dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo halka ay doonayaan in howlgal ay ka sameeyaan. waxaase cajiiba in qofka ama askariga uu u maleeyo in keligii uu yahay. sirdoonkuna marka xogtani ay soo gudbiyaan, haddii dowladdu ay u baahan tahay in halkaasi duqayn ay ku samaysana, waxaa u sahlanaanayso in halkaasi ama cid walba ee u aragtay in aag ay ku jirto in aaggaasi ay ugu dhufato. waddamada horumaran sababaha qalalaasooyin sida dhaqdhaqaaqa argagixisnimada aysan uga jirin waa in waddamadaasi sirdoonkooda uu aad u sareeyo. goobaha aanan lahayn system dadka lagala socdo waa goobaha ugu fiican ee argagixisada taarget ay ka dhigato. dalka Shiinaha ayaa waxa uu noqday waddan aad ugu horumaran ilaalinta iyo la socoshada dadka muwaadiniinta ah. dalka Shiinaha waxa uu sameeyay nidaam dhibcaha ee muwaadiniintiisii uu u qaybiyo. qofka xitaa hadal qaldan haddii uu waalidiintiisii uu ku dhaho dhibca ayaa dowladda qofka ay ka jaraysaa. qofka haddii wanaag uu sameeyana dhibcaha uu haysto ayaa loo kordhin doonaa. tanina waxaa suuragelinayo qalabyada casriga ah ee dowladda ay isticmaasha meel walba. waddooyinka Shiinaha waxaa ku dhegsan kaamirooyin waaweyn ee qofka soo socda wejigiisii kala garan kara. 100 qof oo jidka socotay kombiyuutarka magacyadoodii waa uu kala yaqaanaa. hebel waddada dhexdeedii waxa uu ku sameeyo sistemka kombiyuutarka haddii dhibca uu ku siinayo ama haddii uu ka jarayo, hadba waxa ay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa iyo ficilka qofka. sidoo kale dalka Shiinuhu waa waddan leh internet isaga u gaar ah, khaasatan platformyada social mediaha sida Facebooka iyo Twitterka. waxayna beddelkeedu ay leeyihiin applicationo Chinaha oo kaliya u gaar ah. tanina waxay u sameeyaan si ay uga taxadaraan in xogta muwaadiniintoodu dowlad kale gacanta ay ku hayso. waana sababta tiknoolajiyada TikTok buuqa badan ay u dhalisay. dowlado badan ayaa TikTok waxa ay ku sheegaan aalad jaajuus ah oo Chinahu uu leeyahay. dabcanna waa mid suuragal ah, waayo maanta waddooyinka ugu fiican ee wax lagu jaajuuso waa aaladda internetka. inta hal application laga dhiga mid caan ah ayaa malaayiin qof ah, xitaa siyaasiyiinta aanan baraarugsanayn xogtoodii sidaa lagula socon karaa. dalka Shiinuhuna applicationadan uu isticmaalayo iyo la socoshada xogta muwaadiniinta
mucaashaqiinta dhinac waxa uu ka hortag fiican u yahay jaajuusiinta gudaha ku dhex sugan dalka. xogta ka baxda China dhexdiisa waa mid dowladda ay la socoto. waxyaabaha kale ee la iska jaajuusa waxaa ka mid ah qalimaanta qofka jeebka uu surto. kaamirooyin aad u yaryar ayaa qalimaanta dushoodii lagu dhejiyaa. qofka qalin caadi ah ayuu u maleeyaa waa aaladse qofka dhaqdhaqaaqiisii lagala socdo. muuqaalkanise waxaan ka dhigi doonaa mid silsilada ah oo arrimaha sirdoonka la xiriira. qofkuna waxaa wanaagsan maanta khaasatan casrigani tiknoolajiyada wax walba ee uusan garanayn waa inuu ka fogaadaa. waa inuusan sidoo kale wax walba ee dhib u keeni kara uusan ka hadlin. sirdoonaduna waa dad xafiisyada iyo goobaha sida aadka loo ilaaliyo ku dadaalaa in ay dhex galaan. haddaba qof aanan is-ilaalinayn casrigani waxa uu ku dhex jiraa halis aad u weyn. marka dowladuhu laga soo tagay xitaa qof kale oo saaxiibkaagii xitaa ayaa laga yaabaa in taleefonkaagii meel fog uu kaala socdo adig oo aadan ogeyn. qaybta xigta ee muuqaalkuna waxaan kaga hadli doonaa qaabka sirdoonada ay u sameeyaan shirqoolada sida dilalka shakhsiyaadka bulshada dhexdeedii muhiimka ka ah.